isuduwaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee gobolka Salel Cabduqaadir Ismaaciil Jaamac ayaa shir jaraa'id ku qabtay xafiiska uu ku leeyahay wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee gobolka Salel ayaa waxa uu ka waramay waxyaabaha u qabsoomay sanadkan iyo wax u qorshaysan isagoo TV-ga qaranka la hadlaya ayaa waxa uu yiri warhayo bacdama faraha lagu hayo danaha kalluumaysatada sideedaba maraakiibta jirifka laga joojiyay xaqii kalluumaysiga sharci darrada ahaa wax laga qabtay loo faaruqay kalluunkii sidii hore uu ka soo dhawaaday ka batay waxaasuna waxay ka wadahay waxqabadka wasaaradda loo qabanayo danaha kalluumaysiga korbaadkeeda taas waa tan laba marka wasaarad ahaan ka hadlo maamulka aan faraha ku hayno ee korbaadkiisa wax badan baa ka muuqday oo iska bedelay xaq dhaqaale ha noqoto xaq kalluunkiyo ka fariiqaatay oo batay ha noqoto xaq wacyigelin ha noqoto xaq qalab la siiyay ha noqoto waa mid ina ka dhaxaysa inaynu wada ilaashano midyaha ka hadlay iyo waxa anigu dantooda kuma jiro iyagu afkooda u xora laakiin waxaan ka hadlayaa bal kalluumaysatadu inay danta ogaato inay aanu la qabanayno ogaadaan inaanu wixii hore ka xumaan jiray halkooda wanaagsan ugu soo celino oo hadda joor dantooda ka shaqeyno oo hay'aduhu wada qaldan haday wax la mari jireen aanu wasaaradda ugu soo xidhno aanu iyaga gaarsiino oo advocacy u noqono iyo inay ogaadaan in wasaaradda ay iyana ku xidhmaan halkaas waxa ka soo baxaya waxa la yiraahdo wada shaqeynta iyo in danahooda hadii joor laga wada hadlo halkan aynu ka dhaxadlayno xerada fool la yiraahdo hadii joor caraga lagu hayo horta xeradu waxay ka tirsantahay waa meel dawladeed dawladana faraha ku haysa qofna iskama leh qofku hadduu karaysto heshiis buu ku karaystay heshiis baa isaga iyo dawladda dhex yaala hadduu heshiiska jabiyo waa dadka kale oo ka baxaya wadadaas oo cabaya hadduu heshiiskii ka soo baxo oo uu adeego sidii loogu talagalay kalluumaysatada oo dalahooda lagu fuliyona fiima ahsan laakiin hadii joor yaan loo arkin meel ama nin leeyahay ama reer leeyahay ama si gaar ah loo leeyahay waa meel dawladeed kalluunlaana loogu adeegaya ninkii kiraysta hadii la doono iyaga lagu soo deynaya dawladda qalab u dhigaysa iyaga loogu shaqeynaya weligood ba iyaga yeelanay dhismayaasha dawladdu kala bay ka batay dadka loogu shaqeeyo taas waa tan kale aan doonayo inaan yar taabto hadii joor waxa la sheegaa badda waxa jira intaas oo dawlad baa lagu sii daaya horta badda waa la kiraya kalluunkuna waa khasab waa la qabanaya dawladuna way kireynaysaa hadba inta sharcigu ogolaado dooyaha yar yar in laga kireeyo laga qaado lacag oo dakhliga dawladda lagu kabo oo lagu maalgeliyo dakhliga ay dawladdu doonaysaa waa la kireynaya laakiin tarool lagu sii deyn maayo iyo jirif laga kireyn maayo kiradu waa dooyaha yar yar ee watirka gacanta kaga shaqeeya sideedaba kalluun oo waxyaabaha kaliya beel xayawaanka iscuna weeye oo hadii laba sano la daayo la yiraahdo laga daayo dilkan ama qabashada isagoo iscunayo isbaxsanaya ayuu dibadda ku soo boodaya laakiin bal wadaniina ka wada dhaxaysa ninka wax ka sheegay oo leeyahay 10 dooyood baa laga qaadaa oo 50 baa lagu fasaxaa waa mid ina ka dhaxaysa inaynu wada ilaashano anagu waxba kuma ogin waanu dhexmaraa wiiganaanu ka soo baxnay waa ka soo weynay wiigana waanu ku noqonaynaa laakiin ninka sheegayo waa dan ina wada saaran inoo ilaalino tus annaga soo qabanayna ciidan baa u xil saaran annaga u xil saaran adiga u xil saaran meesha ay ku jiraan loo sheeg haday iska noqoto iskaga ceebayste hadal iyo ninkii malaha isoo eegay weliga kuwa anagu sadantayadii waa ku dadaalayna waanu ilaalinaynaa waanu kantaroolaynaa waanu dhexmaraynaa كذا شوشين مين كلهم كسيد السبع وخيرات إلهي نسيين ووح أينو دار هاي دلالك عكلا عن بضحة هاي ووح أينو دار هاي هذه جور أهمية إن إيش الله جوها يلا جوش غيستو يا للدورية دولة دورية الفرحة جوها يسال للدورية لكن هلا يسكون احترامه الله كلا ضمية أمرك والله يسكوا الله والله شغاية أيام ماشي كتير أنا وخفت موضوع عندنا ما ضبصوا عندنا ما هذا الكلام ما ضبصوا لكن جود هاني عام هاني بان وحشيني كلهم ما يسطر وأنا جود ما يصير أيوه وعلى بعض كلهم ما يسطروا هو شعب لهم
qaash wataa ha soo galo nin witir sitaa ha soo galo nin shabag sitaa ha ka mid noqdo nin iibsadaa ha ka mid noqdo mid dhoofiyaa ha ka mid noqdo horta waa bahweyn bahweynta ayaga ah oo category leh annagu dan ahaantaan waa isugu kaaya mid laakiin waxaan ugu horeysiinaynaa nimanka fishermanka waxa la yiraahdaa fishermanku waa ninka soo saaraya هذا يجور لا شيء arrimihiisa iyo hawlihiisa iyo wixiisaba de koruqaad lagu sameeyo la socdo la update gareeyo wixii loo qaban karo loo qabo horta waxaan ugu bishaareynayaa xaradan hada yajor la leeyahay si gaar ah loo tilmaamo horta kaloo loo idinka la ugu shaqeynaya taa ogaada ama dawladdu waxay idin dhigto ama hay'ad la idin keeno ama shirkad barayfada la idin ku keeno laakiin dad inay si gaar ah u tilmaansadaan oo si gaar ah dawladda u laacaan oo si gaar ah madaxda u aflagaadeeyaan waa midaan meesha ku jira meesha kaloo laale ninka kaloo laahayn oo iskaga baxo iskaga